بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله سبحانه وتعالى dadka gobol ka mida ayuu ku arsuqaa inay jeclaadaan la kulankiisa. wuxuu ugu deeqaa inay adduunka ka tagaan, inay jeclaystaan ayagoo muslimiin ah. sharafta qofka uu gaaro bani aadamka ahna waa inuu adduunkan uga tago asagoo markaa muslim ah. tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin. allow idil anigoo muslim ah, saalixiintana iwaafaji, dadka wanaagsan i haleelsii. rag fara badan oo ay nebiyadu u badnaayeen ayaa oraahdoodu sidaa ahayd. walaalayaal, waxa ugu qiimaha badanna waa inaad islaamnimo ku noolaataa, waa inaad islaamnimo ku dhalataa, waa inaad islaamnimo ku dhimataa. qofku intaa ilaahay isugu daro subxaana wa tacaala, khayr iyo wanaag fara badan ayuu haleelay. ilaahayow idil anigoo muslim ah, ina waafaji oo i haleelsii dadka saalixiinta ah. nabi yuusuf calayhi salaam ayaa wuxuu soo maray mixno iyo imtixaan. imtixaankii ayuu u dhabar adeegay, waa ku fara adkaaday, rabbi buu u tala saartay. imtixaan buu u dhiibay, dhibba dhibbay u dhiibtay. markii uu sabray oo khayrkii iyo wanaagga uu ku dadaalay, ilan asagaa qiray oo yidhi: innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. markii dambe libtuu alla siiyey, guusha ayuu gaaray. nebi yuusuf heer waxa uu gaaray waxa magaalada deggan, baadiye deggan, warqad uu saxiixin, raashin ay ku qoran tahay inuusan qofna cuni karin. nebi yuusuf calayhi salaam raashin uu asagu bixinin, gacantiisa uusan ku saxiixin, cid cuni kartaa inaysan jirin. xaaladda noocaasa alla gaarsiiye subxaana wa tacaala. rabbi wuxuu yidhi: ijcalnii calaa khasaa'ini alard innii xafiidun caliim calayhi salaam. mar allaala markii walaalihii dhibaateeyeen ay ugu yimideen magaalada meeshii uu madaxda ka ahaa, ooy meeshii dhib badan ay u sheegteen, mashaakil adag ay u sheegteen, mtaqaana ay garteen inuu yuusuf yahay, ayaa markii dambe uu iska cafiyey. saamaxaad ballaaran ayuu u fidiyey. qamiiskiisii ama shaatigiisii ayuu u dhiibay. uu yidhi: aabbahay wuu indhabeelaye wejiga uga dhufta say indhaha ugu soo laabtaan. sidii baa dhacday. markaabaa baadiye laga kaxeeyey, waxaa la geeyey masar. wa qaalat quluu misra in shaa allahu aaminiin. wa rafaca abawayhi cala alcarshi. hooyadii iyo aabbihii ayuu kor u dhigay, kor ayuu u qaaday, carshigii ayuu ku soo dhoweeyey. markaasay u sujuudeen. sujuud ayay la dhaceen baa la yidhi waalidkii iyo walaalihii dhammaantoodba. yuusuf wuxuu dhahay: aabbe, tawaaryadii aan horay kuugu sheegay, rabbigay xaq ii dhab ayuu ka dhigay. ila subxaana wa tacaala waa ii dhaweeyey. asagoo yar ayuu riyada arkay yuusuf, asagoo yar ayuu aabbihii u sheegay riyada yuusuf, asagoo yar ayaa ilaa subxaana wa tacaala sharafta iyo karaamada, khayrka iyo wanaagga markaa uu siiyey. yuusuf wuxuu dhahay: aabbe, tani waa ta'wiishii riyadii aan horay u arkay. rabbigay xaq buu ka dhigay. waqad axsana bii, waa i wanaajiyey id akhrajanii min assijni, xilligii uu xabsiga iga soo saaray ilaah. wa jaa'a bikum min albadwi, idinkana uu baadiyaha idinka keenay. min bacdi an nasaqa ashaytaanu baynii wa bayna ikhwatii, waa markuu naga dhex booday ani iyo walaalahay shaytaanka. yuusuf dhib kastay marsiiyeen ma uusan sheegin, dhibaatadii ay gaarsiiyeen walaalihii ma uusan cabanin, walaalihii dhibkii ay gaarsiiyeen ma uusan gadaal u laabin. laakiin wuxuu yidhi: markii shaytaanna simbirraxiyey, na fasahaadiyey, naga dhex shaqeeyey ani iyo walaalahay dhexdood, ina rabbii latiifun limaa yashaa.
innahu huwa alcaliimu alxakiim. intaa ka bacdi rabbi ayuu baryay yuusuf. hadalladiisii waxaa ka mid ahaa, rabbiyow qad aataytanii min almulki, mulki baad i siisay, maamulka qayb ka mida ayaad wax iga siisay. wa callamtanii min ta'wiili alaxaadiisi, riyooyinka sida loo fasirana waad i bartay. faatira asamaawaati waalard, allaha samaawaadkii arlada abuurayow, amaamudayow, abuurkooda bilaabayow, anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira, weligaygii ayaa tahay, umuurahayga adaa tawaliya, adaa imaamula adduun io aakhiraba. tawafanii, allow i oofso, allow i dil muslim anigoo ah, wa alxiqnii bisaalixiin, saalixiintan i haleelsii. boqor kasta uu noqdo, wanaag kasta uu gaaro, cizi kasta uu gaaro, sharaf kasta uu gaaro, imtixaan kastuu alle ka badbaadiyo, waxa iga muhiimsan buu yidhi inaan islaamnimo ku dhinto. tawafanii, ilaahayow bas waaye adduunka, rabbiyow bas waaye adduunka. qalinkiibuu dhigay, ri'aasadiisii ayuu dhigay, maamulkiisii ayuu dhigay, madaxtinimadii ayuu dhigay. allow i oofso, allow i dil anigoo muslim ah, anigoo islaamnimo ku dhex sugan. allow i oofso. wax badan marka alla ku wanaajiyo, ummadda lagaa sara marsiiyo, hogaamiye sare lagaa dhigo, ma aha in lagugu kordilo inaad ku timaado, ma aha adigoo qaabdaran inaad uga tagto. waa inaad aakhiradaada gadaal ka xasuusataa, waa inaad aakhiradaada dib ka xasuusataa. waad u jeedaa yuusuf wuxuu dhahay, ilaahayow bas waaye adduunka, allow bas waaye tawafanii, idil musliman anigoo muslim ah, wa alxiqnii bisaalixiin, allow saalixiinta i haleelsii, saalixiinta i dhexgeey, saalixiinta allow dhexdooda igu dhex sug. saasuu markaa yidhi. rabbi subxaanahu wa tacaala qofka agtiisa wanaag u yaala isu kalsoonaan kara oo jeclaan kara inuu rabbi la kulmo subxaanahu wa tacaala. yuhuudda waxaa la tilmaamaa inay yihiin dadka ugu dadaalka badan xagga nolosha. axrasa annaasi calaa xayaat, wa min aladiina ashrakuu yawaddu axaduhum, midkood wuxuu jecel yahay low yucamaru 1000 sana, 1000 sano in la cimri siiyo, 1000 sano inuu adduunka joogo yuhuudigu jecel yahay. inteenan xumaanta samaysana waana lamid baanu nahay, intaan alla agtiisa wax u oolin lamid baanu nahay. ayagoo xaaladoodu saas ay tahay ayaa haddana waxay jeclaysan lahayeen oo ay sheeganayeen inay yihiin dad ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. waxay sheeganayeen inay yihiin dadka ilaahay ugu dhow subxaanahu wa tacaala. markaa kadib ayaa loo yidhi, haddaad tihiin kuwa ilaahay u dhow, haddaad tihiin kuwa ilaahay jecel, haddaad tihiin kuwa xaaladoodu saa ay tahay, niyadda gashta oo tamaniya geeri, mana tamaninayaan. waa bimaa qadamat aydiihim, waxay gacmahoodu horumarsatay. yaa ku dhiiran karoo annaga naga mid ah inuu jeclaado la kulanka alla maanta? yaa naga mid ah oo maanta ku dhiiran kara inuu la kulanka ilaahay jeclaado? fiiri yuusuf, tawafanii musliman, allow muslimnimo igu oofso, allow idil anigoo muslim ah, allow iwaafaji oo i haleelsii bisaalixiin, dadka saalixiinta ah ayuu markaa leeyahay. nin saxaabada ka mid ah ayaa intay gaalo qabsatay waxa la damcay in la dilo, waxa la damcay toogasho in lagu dilo, waxa la damcay in dhibaato la gaarsiiye. markay salbiyeen ayuu yidhi, mid baan idinka codsanayaa haddaad ii samaynaysaan. maxay tahay ayaa la yidhi, waxaan jeclaan lahaa inaad xarigga iga furtaan, 2 rakacadoodna aan markaa tukado. way ka oggolaadeen oo 2dii rakacadood ayuu xirtay, waana tukaday. 2dii rakaca markuu ka baxay buu yidhi, haddaanan ka baqayn inaad i dhahdaan dhimashadu ka cabsanaya, waan ka dheerayn lahaa, waana ka qurxin lahaa. waa ka qurxin lahaa buu yidhi. way soo qabteen jilkii iyo geedkii ay ku salbinahayeen ama ay ku dili lahaayeen bay markaa ku xireen, kuna sureen baa la yidhi. falastu ubaalii buu yidhi, u aabbayeeli maayo haddiiba lay dilayo anigoo muslim ah. allaahu akbar. islaamnimoba haddii laygu dilayo wallahaanan u aabayeelaynin, aan u meeldayaynin jaanib kasta oo aan u dhaco ama geerideedu ay markaa ahaato. saasaa dadkii gobolka mida ahaayeen. allah ku arsuqay oo khayrkaa iyo wanaaggaa ku manaystay.
allaa ku arsuqay inay jeclaadaan la kulanka alle. qofka la kulanka alla jeclaada, alla la kulankiisuu jeclaada. qofka la kulanka ilaahay nacana, alla la kulankiisuu naca subxaana wa tacaala. nebi sulaymaan calayhi salaam sharaf gooni ah ayuu ilaahay siiyey. nebi sulaymaan khayr fara badan ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. nebi sulaymaan waxyaabo badan baa ilaahay u sakhiray. rabbi asagoo tilmaamaya ayuu yidhi sulaymaan daawuud buu dhaxloo aabbihii ah. dadkii ayuu ku yidhi waxaa nala baray shimbirka sida lala hadlo. shimbirka la hadalkiisa ayaa nala baray oo shimbirkuu la hadli jiray. hadalkiisuu dareemi jiray, hadalkiisuu fahmi jiray. shay kastana cilmi baa nala ka siiyey iyo wax uun, waana fadli weyn. waxaa loo soo kulmiyey sulaymaan ciidankiisoo jinni iyo insi ee shimbiro isugu jira. mar allaala markay yimideen say u soo socdeen qureysho godkeeda ayay yimideen. ayagoo soo gaardinaya ayaa qureeshadii madaxda u ahayd waxay tiri yaa ayuhannaml, war qurayshooyinkaanow guryihiina kala galgala, war kala carara oo kala dhuunta, yaysan idin burburinin, yaysan idinku joogjoogsanin sulaymaan iyo ciidankiisa ayagoon markaa ogeyne. sulaymaan wuu dhoola caddeeyey. sulaymaan waa uu qoslay, hadalkeedii buu ku qoslay. wa qaala rabbi awsicnii, waa nimco weyn. shimbirka hadlaaya haddaad hadalkiisa fahamto waad la hadli karto. qurayshada godkeeda ku jirta cilmigeeda iyo hadalkeeda hadduu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala, muxuu dhahay rabbi awsicnii, ilaahow iwaafaji oo ihaleelsii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya, inaan ku shukriyo nimcada aad korkayga yeeshay iyo labadayda waalidba. wa an acmala saalixan tardaah, inaan sameeyo camal wanaagsan oo aad raalli ka tahay. allow iwaafaji inaan qabto camal fiican. wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin, ilaahayow ihaleelsii oo waxaad igelisaa naxariistaada oo addoommadaada saalixiinta dhexdooda ahaatay. kaa ilaahayow iwaafaji oo igey, kuwaa ilaahayow iwaafaji oo igey. nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa loo yimid. markaasaa la khiyaar geliyey oo la yidhi ma adduunkaad ku waaraysaa? keedadka adduunka miyaan ku siinaa? adduunka xoolaha yaalo oo dhan miyaan gacanta kuu gelinaa? khasaa'inta furayaasheeda ma ku siinaa ood adduunka ku waarto kadibna aad janno hesho? mase ilaah agtiisaad aadi? mase inaad dhimataad rabta? bal rafiiqi alaclaa buu yidhi, rafiiqa saraan rabaa, rafiiqa saraan rabaa, rafiiqa sare ha la ii geeyo. saasuu rasuulku doortay sala allahu calayhi wasalam. ilaahu rafiiqa sare ii haleelsii. wa alxiqnii bisaalixiin, saalixiinta ilaahayow iwaafaji oo i haleelsii. caaisha waxay tiri rasuulku markuu sakaraadka ahaa, mad dhegtaydan mad afkiisa u dhoweeyey, cod yar baa ka soo baxayey asagoo dhahaya rafiiqa sare, rafiiqa sare, rafiiqa sare. waxaan iri bay tiri idan laa yakhtaarunaa, nebiga nama dooranin. inuu noo joogaan rabnay laakiin nama dooranin. wuxuu doortay inuu ilaahay agtiisa aado subxaanahu wa tacaala. idan khayrka iyo wanaaga, sharafta iyo cizadu waxay tahay qofku inuu ilaahay waafajiyo inuu jeclaado la kulanka alle subxaanahu wa tacaala. ilaahayow idil wa alxiqnii bisaalixiin, saalixiintana i haleelsii, anigoo muslim ahna idil. saasay dhahayeen dadkii wanaagsanaa, dadkii suusuubanaa, dadkii khayrka iyo wanaaga ilaahay ku manaystay subxaanahu wa tacaala. tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin, saalixiintana i waafaji, saalixiinta i haleelsii. saa darteed walaalayaal, aan samayna waxaan la kulanka alla la jeclaano, aan samayna waxaan la kulanka ilaahay u doorano, aan samayna waxaan ilaah subxaana wa tacaala ka barinana ay noqoto mar allaala marka wakhtigeenna la gaaro rabbi inuuna oofsado annagoo markaa muslimiin ah, diinta ku taagan, khayrka iyo wanaagana ku socona. sansaanta aad arkaysa dadka maanta jooga, waxaad moodaa in qiyaamihii la hilmaamay, waxaad moodaa in dhimashadii la hilmaamay. qof kastaa shir buu qabanayaa, wuxuu doonuu ku hadlayaa. qof kastaa masrax buu istaagayaa, suu doonuu u heesayaa. qof kastaa meel buu soo istaagayaa, suu doonuu u hadlayaa. maxaa dhacay? aakhira in la xusuustaa loo baahnaa, rabbi loo dhowaado. saa darteed aan ku dayana dadka wanaagsan oraahdoodu ahayd rabbow idil anigoo muslim ah,
saalixiintana iwaafaji oo i haleelsii. saa darteed baa diinteena mararka gobol ka mid ah qofku waxay u diidaa inuu dhaho ilaahayow nafta iga qaad oo idil dhibaato adduun oo asiibtay darteed. haddii lagama maarmaan ay noqoto xataa dhibka adduunkee asiibay inuu geeri u baryo ha dhaho allow inoolay intay noloshu khayr ii tahay i oofso hadday geeriduna khayr ii tahay. rabbiga xaqa hana waafajiyo. maanta waxaanu maraynaa waa 26 bishii Shacbaan 1442. allah xaq waxaan ka baryaynaa inuu ramadaan samii khayr nagu gaarsiiyo, kuwa ka faa'iidaystana rabbi naga dhigo. وبالله توفيق والله أعلم.